لكن الشغل بدن بانوسو تريكا يمك على نمط الصومالية هتين الصومالي أحيانا بدن مقابل بدن تمر بدن بيعاود إحنا ما نفعلنا وحنقوم حتى غير ولا شيء عنب ولا شيء حاوة حنقوم غير يوم كلام waxaan kala mahad weyn siinayaa burooyinkeena Soomaaliyeed ee meel kasta metelaya wadankeena Soomaaliyeed aad iyo aad mahadsantihiin isdhegeysanay shirarka wanaagsan iyo khudbada wanaagsan ee shirkada aad bixisaan aad mahadsantihiin waxaan idin sheegayaa qaatumo mudday jirtay waxaan socdaa wadankii muddadii aan intaa hayay waqtigeedii ayaa la gaadhay oon wareejinayaa intaanan wareejin waxaan u imid magaalada Nairobi inaan barto shacabkayga dadkayga iyo walaashayaan dhowr iyo toban sano is arag marka waxaan jeclaaday inaan dadka inaan dhegeysto la sheekaysto dadkayga waan is aragnay galabtana shir baan leeyahay laakiin sharaftu waxay ku jirtaa midnimada Soomaaliyeed haddayna Soomaalnimo ku qaban karin waxba ma qabsan karno qaatuma gooni ma istaagi karto buntland gooni ma istaagi karto iyadoon ahayn midnimada Soomaaliyeed aan ku jirsanay Jubbalandna gooni ma istaagi karto laakiin Soomaalnimo waxbaa lagu qaban karaa walaashi waxay ka dhawaaqisay digtay shanta geesood dee waxaan u malaynayaa kulligeen waan fadhinaa waan matalaynaa qof inaga mida hadduu maanta wax gaadho waa xubin inaga inaga maqan laakiin waxa wanaagsan yahay inuu gargaarno ogaano is ogaano wax ka wanaagsan ma jirto ta kale inagu border dumarkeenu border ma lihin meeshaynu aadno waa meeshaynu laakiin waxaynu garab taaganahay waa magaca iyo sharafta iyo wadanka waxa aynu ku leenahay micnihiisa iyo raggeena haddayna maanta garab istaagin raggeenu way isiyakaas arkaya maanta waxa kala qarinayana waa quruxdiina iyo sharaftiina waa haddaad wadankiina xoolo gelinaysaan waa haddaad waxbarasho gelinaysaan waa haddaad caafimaad gelinaysaan intaba waa loo baahan yahay waayo caruur baynu haysanaa laakiin kuwan inagu haysano kuwooda kale wadankii bay joogaan 23 sano waxbarasho wanaagsan oo oran karno maanta meel bay gaadhaysaa waa very real waa 10% weeyaan maxaynu u baahanahay quruxdana aynu leenahay meen ahayn in wadankeena geeyno quruxdeedii kale inaan wadankii ka dhisno soo ma aha marka waxa weeyaan isku ilaawin halkan mar kasto qof kasta oo meeshu ka soo jeedo iyo magaca Soomaaliyeed waa inay gaarsiinaa la dhaqannaa xiriir la yeelanaa caruuraha yaryar ee maalin kasta wadanka jooga waxa laga yaabaa maanta hadii uu cunto inaysan biri wax qabin inaguna saambir wanaagsan anu maalinta ka soo degayay meesha leema soo dhaweynayaan sababtoo ah magaalada situationkeeda aad bay xumay dad intaan isugu keeno airportka lagu xidhiidho doonima because hal qof oo inaga mid ah oo maanta la kaxeeyo meel kale laga tuuro oo wax inaga maqan waxaan idhi casuumadan wanaagsan waxa ka wanaagsan inagoo meelkeeda farsamo sheekaysan laakiin walaaladii waxay yiraahdeen maya waa wax yar oo wanaagsan si dumar ahaan waa qasab inaad loo timaadid inay dumarkaas barataan aniguna waa igu qasab inaan maanta barto haweenka Soomaaliyeed